magacayga waxa waaye waa Qamar Xilma Cabdiraxmaan maxkamadda ardayda oo ku guuleystay manxada Hormuud Telecom Foundation sanad markay ahayd 2020 marka waxaan dhigtaa jaamacadda Muqdisho bangaan finance ayaan ka seeyahay qaybta dhaqaalaha aan ahaan ma beelahayn ba inay macquul noqonayso yani wallahi waxay ahayd arin ma la filaynin laakiin aan xadiilay in ogaadaan manxadan inay tahay dadka Soomaaliyeed oo dhan loo soo bandhigay qof kasta oo calafkiisa ka qaadayo horta ma sha Allah waxbarashada horta si fiican ay ugu socotaa ma sha Allah koos ardayga waxa laga rabaa marba hadii uu helo fursad sidaas oo kale ah sida ugu fiican inuu uga faa'iideysto horta ardayda waxa leeyahay adduunyadan imtixaan waxaan dhiilahay kaliya niyadiina dejista yani Ilaahay ku xirnaada imtixaan sidiisa waa gool daro kii ku soo baxaana Ilaahay wuxuu u calfay inuu ku soo baxo kii aan ku soo bixina wuxuu u calfay Ilaahay inaan weyn ku soo bixin Hormuud Telecom Foundation waxa leeyahay waa mahadsantihiin Ilaahay ma iskale ku ilhaamiyay inay anaga manxada noo soo bandhigaan waxa leeyahay jazaakumullah khair inta si in ka badan oo si rajeynayna sida bulshada ugu adeegayaan inay ugu sii adeegi doonaan insha Allah waxa leeyahay nasiib wacan